shaqalaha ku hawlan diwangalinta madaniga ee gobolka Togdheer oo sida fiinta uga qayliyay Wasarada arimaha Gudaha Soomaaliland ay ku eedeeyeen inay lunsadeen lacagihii iyo agabkii shaqalaha si ay ku hawlgali lahaayeen taasina ay sababtay in muddooyinkii u dambeeyay ay istaagto diwangalinta madaniga ee gobolka Togdheer geesta kale waxay eedeyn ballaaran u jeediyeen barasabka gobolka Togdheer ay ku eedeeyeen inuu ka gaabiyay inuu bixiyo dhaqaalihii iyo agabkii shaqalahaasi waa sida ay hadalka u dhigeen waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan magacaygu waa Saciid Maxamuud Xareed maxay ahayd toy waxaanu ka midnahay ardaydii loo qaatay diiwaangelinta ku soo baxday imtixaanka maanta halkan waxaanu isugu nimi oo goobihii dhammaan ay u xiran yihiin diiwaangelintu ka socotay in gobolka Togdheer in aan dhammaan arday shaqaalahaas shaqaynayay muddada 2 bilooda aanay soo gaadhin wax mushahara ama maxay ahayd toy wixii ay xaq u lahaayeen ee ay saxiixeen kontract ku galeen haba yaraatee maamulka gobolkana markii ay guddi ay samaysteen shaqaalaha diiwaangelintu ay u tageen ay noo soo sheegeen guddigii inaan wax lacag loo hayn oo wax lacag oo aan idin hayna ma jirtee meesha doonta ay nagu yiraahdeen taasina ay nagu kaliftay inaanu u sheegno saxaafadda iyo maamulka maxay ay tahay dawladda wasaaradda arimaha gudaha iyo dawladda dhexe inay wixii xaq ay u leeyihiin shaqaaluhu xilligii loogu talagalay loo keeno goobiina ay xiran yihiin sidaana ku xidhnaan doonaan intay helayaan wixii ay xaq u lahaayeen yoomkoodii nin walba loo haysto dukaanku ka qaadanayay sharaabkii iyo biyaha qalimaantii waraaqihii wax alla wixii ay qaadanayeen jeebkooda ka sii isticmaalayeen maca transportationkii aan xilliga mid ka hayn magacaygu waa Cabdullaahi Yuusuf Maxamed waxaana shaqaalaha ka tirsan diiwaangelinta gobolka Togdheer waxaanu halkan u nimi annagoo isku dhan oo goobihii oo dhan ah waxaanu wixii aan ku shaqaynaynay 2 bilood aanu dawladda xaq u lahayn aan ku tara kaga qaadanay markii aanu weynay cidnoo timaadana aan weynay ayaanu shaqadii halka ku joojinay dawladda Soomaaliland iyo wasaaradda arimaha gudaha iyo dhammaan waxaanu ka codsanaynaa wixii ay qusayso in arrinta si weyn loo eego taas shaqadiina sidaas isku taagantay ilaa aan helayno wixii aan xaq u lahayn anakoo wiilashii oo gabdhihii imtixaanada ku baasay Togdheer waxaa dhahaynaa that there is a lot of musuqmaasuq in Togdheer region lacagteena lama helin there is a development of contract mushaarkii lama siinin 2 bilood therefore we requested the government of Somaliland to release our money 2 months salary. We don't have transportation to the sites. We don't have the books. We don't have the pens. Everything is on our pocket. We don't have even the phones. We just pay our vouchers, and we need our money to be released as soon as possible. Unless our money to be released, without our money released, we do not work no more in Togdheer. Kama shaqeynayno. Wasarada duba waa markii u horeysay shaqaalaha ku hawlan diiwaangelinta madaniga ee gobolka Togdheer ay iskugu soo baxaan meel fagaara ah oo ay ka hadlaan duruufaha keenay inay istaagto diiwaangelinta madaniga isla markaana ku eedeeyay wasaaradda arimaha gudaha waa Qadar Cabdirasaaq Saleebaan Qadar Hanad Shabakada Caalamiga ee Hadhwanaagnews magaalada Burco.